Somalia. 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 بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxaan leeyahay boqorka gobasha noo fidiyey iyo dhammaan dadka reer Puntland gaar ahaan kuwa reer Qardho dhammaan ismada madaxda dawladda Puntland iyo intii lugu yeelatay in gobashan maanta aan isugu nimaadno marka ugu horeeyo waa mahadsantiin waxaan kaga mahad celinayaa sida sharafta leh oo aad noo soo dhaweyseen dhammaan madaxda waa idin salaamay maanta Qardho nimid Qardho markaan nimid waxaan la yaabnay sida naloo soo dhaweeyay waa anigii markaan shacabkii arkay iri khayr baan arkaayo qiiman dareemay Qardho ma nabad baa qalbigay khushuucay qiiray qaadee Qardho ma nabad baa inta kale waxaan idin dhamaystiri doonaa markaad labaad cazumtaan hadii raayo intaas ka sokow waxaa runtii maantay mudan in la qadariyo inay halkaan isugu yimaadeen culamaa diintii inay isugu yimaadeen ismadii inay isugu yimaadeen odayaashii dhaqanka oo dhan iyagoo ka shaqeynaya in la heshiisiyo dad Soomaaliyeed oo dhibkooda taagnaa laga soo bilaabo 2006 halkan waxa ka socda maanta ayaa ah macnaha dawladnimada shaqadii dawladda Soomaaliyeed ayaad haysaan waan idinku ammaanayaa waan idinkaga mahad celinayaa Ilaahay ha idin la garab galo waa iftiin cusub oo dawladnimo in labeentii bulshada oo dhan ay halkan isugu timaado iyagoo ka dhiidhiyay in dhiig dambe aanu dalkeena ku daadan in wiilasheenu aanay islayn in inta adduunyadu ay ka shaqeynayso horumar iyo inay dalkooda horumariyo dal walba annagu aanan ku mashquulsanaan islayno in odayaashii iyo culimmadii iyo salaadiintii iyo simadii uu boqorku ugu horeeyo ay kulligood ahaayeen kuwii soo dhisay dawlad goboleedka Puntland ka shaqeeyay waagaas nabad iyo Soomaalinimo haddana aad halkan u joogtiin inaad dhamaystirtaan inaad ka shaqeysaan inaad dad heshiisaan Soomaaliyeed waxaan rabaa tani inay noqoto tusaale kuwa heshiisiinaya waxaan rabaa inaad ogaataan dawladnimadii inaad halkan ka wadaan ha ka daalina kuwa la heshiisiinayana waxaan rabaa inaad ogaataan hal dariiq kaliya idin furan waa inaad heshiiska qaadataan waa bilow waxaan rabaa marka waa idinka cidda aan siyaasadaysnayn waa idinka cidda dareemay xanuunka loo qabo Soomaali midaysan in la helo waa idinka cidda dareentay ama fahamtay in adduunyada ay naga tagtay waa idinka cidda dareentay sida boqorku halkan uu lahaa taariikhda naga sheekayn doonto haddii aan isdaba qaban weyn waa idinka cidda dareentay maanta haddii aan Soomaali loo hiilin inaan gaari doono maalin aan loo hiilin karin sidaas daraadeed ayaan waxaan rajaynayaa in dadaalka maanta aad wadaan aad u yeerataan salaadiinta iyo ogaasyada iyo oday dhaqameedyada kale oo idinka maqan dalka oo dhan meel walba ay joogaan kulligood oo aad ka shaqeysaan idinku ummadda Soomaaliyeed sidii la isugu keeni lahaa annaguna anigoo ku hadlaaya magaca dawladda magaca madaxweynaha magaca xukuumadda waxaan idin ballan qaadaynaa inaan garab istaagay heshiiskan maanta halkan ka socda isaga waxaan rabaa inuusan nagu soo noqon haddii kan nagu soo noqdo tallaabo kale hore uma qaadi karno waxaan rabnaa marka
maadaama aan hadda halkan joogo aniga iyo wafdigayga iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka inaan sii hormarino ducadeenna oo nidhaahdo kani wuu najaxay allaha barakeeyo intaas ka sokow waxaan rabaa inaan idiin sheego anigu waxaan aaminsanahay inaan ahay ra'iisul wasaarihii ummadda Soomaaliyeed inaan qardha imaado waxay tahay inaan dadkayga u imid magaalo kamida dalka Soomaaliyeed dalkii aan ra'iisul wasaaraha u ahaa oo xaq igu leh inaan imaado waan qirayaa inaan soo daahay raali gelina waan ka bixinayaa muhiimaddu marka waxay tahay maanta halkan waxaa jooga dad Soomaaliyeed oo aan aaminsanahay kulligood inay rabaan inay taariikh ka tagaan qolo iyo qabyaalad iyo gobol waa soo tijaabinay way shaqayn weysay inaan ganacsano dawlad la'aan waa soo tijaabinay meel waa dhaafsiin weynay inaan qurbaha u qaxno aan wax ku baranno aan shaqo ka helno waa soo tijaabinay iyadana meel weyna gaarsiin weysay wax walba aan sameynay way noqon waayeen mira dhal intaad ku seexatid habeenkii adigoo niyadaadu fiicantaa aad seexato waxay isugu soo aruurtay Soomaaliya toosadii uu qaadayay professor Dalha waxay isugu soo aruurtay Soomaalinimo kaliya waxay isugu soo aruurtay in haddii aanan midnimada ummadda Soomaaliyeed ka shaqayn in haddii aanan Soomaali isu keenin in haddii aanan sharafteena soo celin kulligeen wax walba aan haysano ama islaan ahaa ama boqor ahaa ama ra'iisul wasaare ahaa in qalbigaadu u daloolo niyadaadu aanay deganayn inaad dareensan tahay inay wax ka maqan yihiin in markaad diyaarad raacdo dunida meel walba ka tagto aad dareemaysid inaad dadka ka liidato inaadan dhammays noqon inaadan qaan gaarin ayay ka dhigantaa maanta marka waxaa la rabaa maadaama aan intaas qiranay adduunyaduna ay ka shaqaynayso inay gobol iyo qaarad isugu timaado annagu kama shaqayn karno qabiil iyo gobol inaan u kala go'no iyo qarniga 21aad annagoo walaalaa inaan tukarad isku leyno kama shaqayn karnaa waa inaan kulligeen ka dhidhinaa aqbalnaana Soomaali inaanay kala maarmin lana kala noolaan karin dawladdu waxay qaadanaysaa doorka ay ku leedahay dawladdu laakiin waa idinku dawladda marqaati iyo dhexdhexaad kama noqon kartaan laga bilaabo maanta idinku waxaad u baahan tihiin inaad ahaataan lafdhabarta dawladnimada dawladda inaad hagtaan si dhibkaan ku jirnaan uga baxno annaga madax ahaan maxaa nala ka rabaa haddii aad xildhibaan tahay ama wasiir tahay ama madaxweyne tahay ama ra'iisul wasaare tahay waa inaan aqbalnaa shaqada ugu horeyso oo naloo igmaday inay tahay inaan ilaalino sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed xataa haddii ay kalifayso in la gaajoodo ama la dhibto inaan ilaalino xoolaha ummadda Soomaaliyeed oo aanan ku takrifalin inaan keenno cadaalad dadka Soomaaliyeed oo dhan u wada sameeyeen aqbali karaan in annagu aan ka dulqaad badannahay kuwa aan rabnay inaan madaxda u noqono in annagu aan la nimaadno dulqaad dheeraada haddii la yiraahdo laba qof oo madaxa oo isla shaqaysay dalka waa laga waayay waxay wax ka sheegaysaa ciidaana maanta waxaan rabaa markii inaan idin sheego waxaan aaminsanahay anigu in dalka Soomaaliyeed uu ku socdo dariiqa saxda ahaa laakiin caqabado waaweyn oo hor yaalaan waxaan aaminsanahay isbeddelka geeska Afrika ka jira Soomaaliya inuu u wanaagsan yahay fursadda ugu wanaagsanna Soomaaliya ay leedahay waxaan aaminsanahay haddii caqabadaha hor taagan aan kulligeen u wada istaagno aan iska dhigno qabiilkii iyo nanjeclaysiga dhinac laaluushka iyo danta gaarka dhinac xukun raadis ama dangaara raadis ka horeeya danta ummadda Soomaaliyeed haddaan dhinac iska dhigno waxaan ka badbaadaynaa khatartii uu noo tilmaamay boqor Burhaan
waxaan ka badbaadaynaa in la waayo fursad dambe oo ummadda Soomaaliyeed looga soo celiyo hogga ay ku dhaclaan macnaheedu waxay tahay marka haddii aad tahay qof Soomaaliyeed oo danqanaya soo celinta Soomaalinimada iyo sida loo rabo waa culays aan qof iyo laba iyo saddex iyo afar qaadi karin qof walba soo istaag dhinacaada ka qabo qof walba soo istaag ee dheh inta horaan ugu filan qof walba soo istaag ee dheh waxaan rabaa inaan caruurta aan aabbaha iyo awoowaha u nahay uga tagno mustaqbal ka duwan kan anagu aan leenahay maanta anigu waxaan aaminsanahay in kastoo caqabadayna hor taagan yihiin in Soomaaliya sharafteedii iyo karaamadeedii ay taagan tahay meeshii hore meel ka wanaagsan waxaan aaminsanahay in madaxda waddanka maanta loo qiimeeyo si aan loo qiimeyn waqtiyadii hore waxaan aaminsanahay inaan ka dhabaynay inaan wada shaqeyno dul qaadanana waxaan aaminsanahay inay joogaan madax Soomaaliyeed oo idin cadaysa kana fog inay xoolihiina musuqmaasuqaan waxaan aaminsanahay inaan bilownay kuna dhiirano waxaan hore loogu dhiiran jiray dhiiranaantaas waxaa laga rabaa qof walba oo Soomaaliyeed dhiiranaantaas waxaa laga rabaa xildhibaan walba oo baarlamaanka ku jira madaxweyne goboleed walba sheekh walba iyo wiil iyo gabar walba oo jaamacad ku jira dalka dibadiisa marka aad u baxdo dadka Soomaaliyeed oo taga meel walba waxay ku qanacsan yihiin inay isbitaal u baxaan waxay ku qanacsan yihiin inay caruurtooda u diraan iskuul waxay ku qanacsan yihiin inay raadiyaan dal ajnabi ay ku noolaadaan taasaad barbar dhigaysaa wadamada dunida ugu qanisan mid ka mid ah badda Afrika ugu weyn dhul beereedka ugu ballaaran kalluumaysiga ugu badan shidaalka iyo macdanta ugu badan meesha uu ku yaalo qiimaheeda waddankeena intuu yahay inta aan ku mashquulsanahay waddan hebel baan caruurteyda geyn doonaa mustaqbalka kulligeena gacmaha isqabsano aan dhisna Soomaaliya ka duwan Soomaaliyadii hore oo haddii aad ganacsado tahay ha ka cabsan dawladdaada ganacsigaada haysato uu ku bulaalaya markaa dawladdaada garab istaagto haddii aad sheekh tahay ha ka cabsan dawladdaada kulligiina soo imaada u sheega ummadda Soomaaliyeed shabaabku sida ay u khaldan yihiin aanay diin islaam u haysan haddii aad odayaal dhaqameed tihiin haddii qolo ay meel degan tahay iyadoo barwaaqaysan tahay oo nagaatay u sheega kuwa kale dhaha annagaa garanayna sidaas u xallisaan haddii aad dumar Soomaaliyeed tihiin oo tihiin kuwii u soo dhintay dalka Soomaaliyeed codkiina kor u qaada haddii aad tihiin dhallinyarada 75% ah oo ah kuwa shacabka Soomaaliyeed ugu badan fursadna u baahan ha suginina in wax la idin qabtay istaaga isu taga wax qabsada waxaan leeyahay aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arkay isimadii oo dhan uu boqorku ugu horeeyo madaxdii reer Puntland odayaal Soomaaliyeed iyo culimadii waxaan rajaynayaa in maanta ay noqoto maalin bishaaraysan oo ka tilmaaman taariikhda ummadda Soomaaliya oo maadsantii